Assalaamu calaykum. Ummad walba waxay leedahay taariikh hore oo ay ku faanto sharafna ay ku dareento, carruurteedana ay barto. Mararka qaar waxaan maqalnaa taariikhda Roomaanka ama Yuunaanka ama Giriigga. Taariikhda macnaheeda oo kooban waa dhacdooyin iyo muwaafiq dhacay xilliyo hore. Marka la fiirinayo dhacdooyinka caalamka soo maray iyo taariikhaha ummadaha, waxaa la arki karaa taariikhda Islaamka in ay tahay taariikhda ugu wanaagsan ee caalamka soo marta. Muuqaalkeena waxaan kugu soo koobi doonaa qaar ka mid ah taariikhaha ummadihii hore ee Islaamka ahaa. Taariikhdeena qiimaha badan waxay soo martay heerar kala duwan, waxaana ka mid ah soo degidda waxyiga. Taariikhdeena Islaamka waxay ka soo bilaabatay markii uu waxyigu ku bilowday Nebiyullaahi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, sidoo kalena uu bashiirada caalamka ugu yeeray dacwada Islaamka. Markaas uu dacwadiisii ka bilaabay ehelkiisa, kuwa ugu dhowaa, kadibna reer Maka iyo dadkii u dhowaa, ilaa heer ay ugu dambeyn dacwadaasii noqotay mid caalami ah oo markaas uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam fariimo kala duwan u diray boqortooyinkii ka talinaya adduunka ee xilligaas. Markii uu dhammaaday maamulka ummiyiinta, hoggaanka ummadda Islaamka waxaa qabtay reer Bani Cabbaas. Iyaguna Islaamka lama aysan fariisan oo waxay ka qayb qaateen faafidda dacwada Islaamka iyo sidii loo gudan lahaa ammaanada uu Nabiga kaga tegay ummaddiisa. Waxa ayna hormariyeen cilmiga heer ay caasimadooda Baqdaad ahayd ay noqotay magaalo cilmiga noocyadiisa kala duwan laga soo doonto. Dowladda Cabbaasiyiinta xilliyadeedii dambe markii ay daciiftay, waxaa ka farcamay dowlado badan oo Islaami ah sida dowladda Saljuuqiyiinta, dowladda Ayuubiyiinta, dowladda Sinkiyiinta, dowladda Mamaaligta iyo kuwo kaloo badan. Laakiin dhammaantood waxay hoos iman jireen khilaafada Cabbaasiyiinta. Waa mid ka mid ah dowladihii ugu awoodda badnaa ee Islaamka soo mara, sidoo kalena waxay ahayd dowladdii ugu cimriga dheeree dhammaan dowladihii Islaamka. Adduunkana waxay tustay qoraxda Islaamka haddii ay meel ka dhacdo in ay dhinac kale ka soo baxdo. Iyaguna waxay hormariyeen cilmiga iyo jihaadka, sidoo kalena waxay ilaaliyeen sharafta ummadda muslimka ah. Nabiga sallallahu calayhi wasallam markii uu dhintay, waxaa bilowday xilli cusub oo ka mid ah taariikhda Islaamka, waana xilligii khulafada, waxayna ka soo bilaabatay Abubakar. Abubakar waxa uu waqtigiisa ku qaatay ilaalinta iyo adkeynta tiirarka dowladdii uu Nabiga sallallahu calayhi wasallam ummaddiisa kaga tegay, wuxuuna la dagaalamay dhammaan dadkii diinta ka ridoobay geerida Nabiga kadib. Abubakar isagana markii uu dhintay, waxaa maamulka Islaamka qabtay Cumar bin Khadaab oo isagana ku caanbaxay cadaaladda. Markii uu Cumar dhintay, maamulka waxaa uga dambeeyey Cusmaan bin Cafaan iyo Cali bin Abi Daalib, kadibna Xasan bin Cali bin Abi Daalib oo hoggaanka Islaamka hayay keliya 6 bilood, kadibna u tanaasulay Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Markii uu dhammaaday xilliga khulafaa raashidiinta, waxaa maamulka Islaamka u wareegay qaab boqortooye ahaan ah. Waxa uu gacanta u galay qoys reer Bani Umayya. Iyaguna Islaamka lama aysan fariisan oo waxay gaarsiiyeen meelo uusan hore u gaarin Islaamka, waxayna furteen dhulka Andalus. Waxay dhiseen maamul Islaam ah oo awood badan, waxayna hormariyeen jihaadka iyo furashooyinka Islaamka. Reer Bani Umayya kadib maamulka Islaamka waxaa qabtay qoys kale oo isla Quraysh ah, waana qoyska Cabbaasiyiinta. Haddaba intaas ayuu ka egyahay mowduuceena. Tan iyo muuqaalkiisa xiga intaa ku kulmi doona, waxaan iga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.